ومضيت وحدي في ظلام مجهم قمر هناك يطوف حول الأنجم حملت لي الأنسام. بسم الله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إن شاء الله تعالى barnaamijkii maalintii dhawaadaan ka hadalnay saddexda sifo ahaa: sifada wanaagsan, sifada munaafiqiinta iyo sifada gaalada, waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin. runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qur-aanka suuradda ugu ballaaran ayuu wuxuu ku sheegay saddexdaba afka ugu horeysa ayuu kaga hadlay, isagoo u tilmaamaya dadkana u kala saaraya waxa ay yihiin, hadduu gaal yahay, hadduu munaafiq yahay, hadduu mu'min yahay. marka in sha allahu tacaala waxaan ku hormaraynaa dadka wanaagsan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala adeecay, ee ku qancay manhajkii alle subxaanahu wa tacaala, ee ka dhigtay khudwo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam, sifooyinka ay leeyihiin ee ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala: bismi illaahi الraxmaan الraxiim, alif laa miim dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin. yani ilahay wuxuu ku tilmaamayaa maxay? ilaahay markuu tilmaamay alif laa miim dalika alkitaabu laa rayba fiih, kitaabkan shaki kuma jiro. kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ee uu koonka u soo dejiyey shaki kuma jiro, hadduu cadaab ka hadlayo iyo hadduu janno ka hadlayo iyo hadduu wanaag ka hadlayo iyo hadduu qiyaamo ka hadlayo, intaba wax shakiya kuma sugnaanin oo yuu markaa wanaag u yahay. ilaahay wuxuu yidhi dalika alkitaabu laa rayba fiih hudan lilmuttaqiin. dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhowrsaday ee ilaahay aayaadkiisa qaatay ee manhajkii nebi maxamed manhaj ka dhigtay sala allahu calayhi wasalam, dadkaasuu hanuun u yahay. oo suu hanuun ugu yahay, wuxuu hanuun ugu yahay, waxaa la tilmaamay salaada sida loo tukanayo, waxaa la tilmaamay in masaajida lagu tukado, waxaa la tilmaamay xanta in la iska daayo. wuxuu kitaabku tilmaamayaa wax fara badan, waxaasuu qofkaasu iska ilaalinaya. wixii xumaa ee uu tilmaamayna uu iska daynayaa, wixii fiicnaayo wanaagga ahaa ee la samaynayeyna markuu ku arko kitaabka gudihiisii inuu ka hadlayo wuu qaadanaya. marka qofka mu'minka ee wanaagsan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala adeecay wuxuu u yahay hanuun, wuxuu u yahay wanaag, wuxuu u yahay uu toosinaya oo jidkii toosnaabuu ku ridaya. waxaan isku daynaa xilqaadka inaan soo gaagaabino oo waqti yar ka dhigno. waxaa dhici karta sifada wanaagsan sheekadeedu iyo tilmaamaheedu in sha allahu tacaala inay 10 xilqo yaryar nagu qaadato. marka qofkaas waa qof wanaagsan, waa qof mu'mina, waa qof ilaahay aayaadkiisa qaatay, ilaahay nooga sheekaynaya ee kitaabka alle subxaanahu wa tacaala uuna shaki kaga jirin. mar allaale markuu arko aayad qiyaamaha ka hadlayso sideedii u fulinaya, markuu arko aayad xanti ka hadlaysa xantii buu iska ilaalinaya, markuu arko aayad beentii ka hadlayso beentii buu iska ilaalinaya. maxaa yeelay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dhaaragti garaynaya oo toosinaya oo jidkii toosnaa ee la rabay inuu ku dhaqmo ku ridaya. shakina kagama jiro kitaabka ilaahay in qiyaamo laysa soo saarayo, in ilaahay subxaanahu wa tacaala la hortegayo, in ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa uu xisaabinayo. qofka mu'minkaa ee ilaahay yaqiinsan ee rabbigii ku qancay aayaadkiisa ee jidka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qaatay, shaki kagama jiro arrintaa kitaabka uu ka hadlayo. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.